kiiba 70 hadii bulshadu waxay leeyihiin biikee ku soo noqo boos weyn baad banaysay waxaan waayay dadkii khayrka jeclaa ee khayrka faafin jiray ee lacagaha ku bixin jiray aad baan wanaagsanahay waan ku soo dhaweynayaa deewa waan ogolahay waxaad weydiinaysaa intaad fanka ka baxday su'aasha ugu badan ee lagu weydiiyaa maxay war dadku waxaad moodaa shadaadin bay ahaayeen sabab su'aasha ugu weyn mar walba la weydiiyaa waxay ku oranayaan soo noqo fankii ku soo noqo meel weyn baad banaysay wax khayrkii nagu dhiiri gelinaya oo wax noogu yeeray xasan oo maan arag dadku waxay ku leeyihiin soo noqo marka waaban la yaabanay boqolkiiba 70 hadii bulshadu waxay leeyihiin biikee ku soo noqo boos weyn baad banaysay waxaan waayay dadkii khayrka jeclaa ee khayrka faafin jiray ee lacagaha ku bixin jiray ee khayrka u helaan ismaan arag dimala way soo socdaan maalmahan xasan dadka fanaaniinta ku soo dhaweyn jiray miya xagga ku soo dhaweyn jiray xagga diintadii anigu ma culimada ismaan arag miya anigu wax gacanta wax ka dhiibayo ma arag bulshadan kale reer Soomaaliland shalay oo dambeysana qays qasriye wada soconay inama wax la duubay ma ko waalan qofka joojisa wax kunay heesan leeyahay buu qaadaya soo noqo marka xasanow ilaahay khayr ka dhiga waxaan leeyahay dowladii khayrka waan sugayaaye say igu dhigaliyaan waxa jirta heesaha wax la yaab muusiga xaraana inta badan bay culimadu yiraahdaan iyagoo bilaa muusiga ma laga yaabaa inaad ku soo noqoto aad qaado horta wax isla sidii hadii codkaaga la helana muusigu ma lagu tultumaya heesaad imika qaado bilaa muusiga intaad ku qaaday oo ay xirtii wax tumi jirteen helaan muusigu barkada laga tumayaa waxba isma dheer waa sidii laakiin waxaan leenahay culimada Soomaaliyeed ama Soomaaliland joogan ama geeska Afrika waa joogan waxaan ka codsanayaa dadka ka soo baxa meelaha dhibaataysan ama fanaaniinta ka soo baxa ama kalaabada ka soo baxa ama meelaha aadka u adag ka soo baxa maxaa loo waayay dad dhiiri geliya oo khayrka ku dhiiri geliya oo hamiga nagu jira rumeeya waxyaabo badan aanu ka shaqeyn karno baa jira oo khayrka lagu faafin karo oo sida aad sheegtay oo codka majaajilo oo waxyaabo badan lagu faafin karo marka culimada Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay xagga khayrka igu taageeraan balto iga warayaan soo garaacaan ilaa madaxweyne Muuse Bixi Cabdi baa kamid ah dad kale fanki ku soo noqo biika waa salaamayna madaxweynaha Muuse Bixi Cabdi xildiid waa salaamayna waxaan leenahay insha Allah doorashadina wad noo qaban oo in salaamayna laakiin waa mar hore kelmadda mar hore igu yiri barigan xidigaha aan sir qabanay buu igu yiri ku noqo maxamed oo xidigii ana cirka idin geynay marka isagana halkan aan ka salaamaya waxaan leeyahay madaxweyne wadanku yar kala geeb buu galay waqtigii doorashada sanadkan inoo qabo soo wadanku isu soo dhawaado intaas madaxweynaha u fari lahaa culimadana in fariintaadina gaadhaan rajeenana insha Allah xasan galeero adiga dadka ku xidhan baa doon salaamaya culimadana waxa leeyahay waa halkii qoladii aan saaxiibka ahaynay kolkol ila soo hadladee aad baa mahadsantahay